isku duwaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka Galmudug ee degmada Xaraale Maxamed Cabdullaahi Maxamed Casqalaani iyo dhalinyaro socodka ku weelisay ayaa booqday deegaanka Daarusalaam ee hoostaga degmada Xaraale ee gobolka Galgaduud waxaana si diiran ugu soo dhaweeyay gudoomiyaha deegaanka Daarusalaam Mukhtaar Sheekh Cabdikariin isku duwaha ayaa intii uu joogay deegaanka Daarusalaam booqday beero laga hirgelinayo deegaanka Daarusalaam waxaana uu ugu baaqay dadka daneeya dalxiiska inay booqdaan deegaanka Daarusalaam gacmo fara ku soo dhawow meeshaan waa deegaanka Daarusalaam ayaan waxa lagu hirgeliyay ceelbiyood inkastoo uu qabyo iyo haanihii iyo waxaas wali ay dhimayeen laakiin si qorshahana koobaad arbaan hirgelino waxa weeye inaan beero waaweyn oo dalxiis u sameeyno sheegag waaweyn waa la sameeyay oo soddon ah haddana qorshaha koobaad aan rabnaa sameeyno waxa weeye inaan beero waaweyn u sameeyno dalxiis la soo aado maadaama ay tahay meeshaan deegaankii baalkii ugu fiicnaa dalxiiska oo hoos yimaaday degmada Xaraale waxa markooda u mahad celinayaa gudoomiyaha deegaanka Daarusalaam saaxiibkay Mukhtaar Sheekh Cabdikariin oo ugu soo dhaweeyay deegaanka Daarusalaam ee hoostaga degmada Xaraale runtii intaan joogay Daarusalaam waxaan booqday meelo badan sida beerta dalxiiska lagu talagalay oo dhawaan rabo in la dhireeyo sidoo kale waxaan soo booqday matoorkii oo dhawaan laga hirgeliyay oo geel iyo arigii ay ka cabiyaan runtii waxaan dhigi karnaa deegaanka Daarusalaam ee hoostaga degmada Xaraale waa deegaan ku fiican dalxiiska haduusan baahay midka koobaad waa deegaanada ugu horeeyo kamid yahay Galmudug deegaamada loo soo dalxiis tago waxaan dhammaan inta dalxiiska danaysa waxaan u sheegayaa inay deegaankan soo dalxiis tagaan gacmo furan baa lagu soo dhaweynayaa gudoomiyaha Mukhtaar baa u jooga